booliska gobolka Banaadir ayaa saakay burburinaya xadgudubyo aan loo meeldayin u geystay dadka shacabka ee ku dhaqan xaafadda Debdemiska ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Abara 4 subaxnimo ee saakay ayaa cagafyo iyo karbaash aan loo meeldayin waxa ay wada jarmaaday raqayatiin mahayamooga oo burkaba bahalka firan isla markaana si nabad ku bariisanayay. Intaas kadib waxa jira banaanyo baxyo xoogan oo dadku shacabka iyagu halkaas laga sareeyay dhigayeen waxayna wacd ku mareen inaysan halkaas ka bixi doonaan ilaa qofka ugu dambeeyo lagu duugayo. xaafadda Debdemiska marankiisu maalmihii iyo isbirihii ugu dambeeyay uu soo jiitamayay ayaa waxa dawladda federaalka Soomaaliyeed waxay dhowr jeer digniin ka soo saartay in laga guuro xaafadaasi maadaama halkaas laga dhisayo Debdemis ay leeyihiin dawladda federaalka Soomaaliyeed isla markaana lagu adeegi doono shacabka Soomaaliyeed asaxaatay dadka halkaas degan oo ayagu 30 sano ugu dambeeyay halkaas deganaa ayaan haysan meel ay u arsadaan iyo sidoo kale meel kale ay degaan waxaana dawladda federaalka Soomaaliyeed ay ka codsadeen in loo daayo dhulkoodaani maadaama aysan dawladdu haysan qorshe ka duwan intaas oo lagu dajinayo dadkaana ayagu shacab u badan